الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة يريتانكي محمد صلى الله عليه وسلم وددك ويري دينتا waxaa loo qaybin karaa laba qaybood oo si aad u kala duwan marxaladii Maka oo 13 sano ku dhawaad ahayd marxaladii Madiina oo 10 sano oo kaamil ahayd marxalad kastaana waxay ka koobnayd heerar kala duwan oo kala gooni ah taasna waxaa la arki karaa markii si sugan loo eego xaaladihii ay faafinta diintu martay muddadii labadaas marxaladood ahayd marxaladii Maka waxay u qaybsanayd 3 qaybood heerkii faafintu qarsoonayd oo 3 sano ah heerkii diinta loogu dhawaaqay reer Maka oo ahayd min sanadkii afraad bilowgiisa ilaa sanadkii 10aad dhamaadkiisa heerkii diinta loogu yeeray dadka Maka ka baxsan ayna ku faaftay waxaana heerka 3aad socday laga soo bilaabo dhamaadka sanadkii 10aad ee nebinimada ilaa markii nebigu Maka ka haajiray heerarkii maraaxilada Madiina soo martayna iyagoo faahfaahsan bay inoo imaan doonaan waxaa la og yahay inay Maka ahayd xuduntii diinta Carabta oo ay joogeen khaadimiintii Kacbada iyo howlwadeenadii sanamadii Carabta agteeda daahirka ka ahaa kasalgaaridda hagaajinteeda ay ka adkayd oo ka dhib badnayd meelaha kale ee ka durugsan marka waxay arrintu u baahnayd go'aan adag oo aan la nuuxin karin oo masiibo iyo dhibaato kasta aysan leeleejin karin sidaas daraadeed waxaa baar iyo xigmad ahayd in faafinta diinta qarsoodi lagu bilaabo inta ay ka gaamurayso oo xidido iyo dad raacsan ka yeelanayso iyadoo aan laga didin guri walba u galayso intii reer Maka waxay qoonsadaan oo ka kacaan lagu kedin lahaa waxaa caadi ahayd in rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii horeba diinta u soo bandhigo dadka dad u xigay oo reerkiisa iyo asxaabtiisii ahaa iyaga buuna isla markiiba diinta ugu yeeray iyo cid kastoo khayr ku yiqiin iyana isaga yiqiin oo run iyo wanaag uga bartay waxaana durbadiiba rasuulka yeelay oo raacay dadkii taariikhda ku caan baxay horaankii caaradka ahaa kuwaasoo ahaa dad khayrka jecel aana maalin ka shakiyin daacadnimada iyo runta rasuulka Alle sallallahu alayhi wasallam dadkaas caaradka ahaa ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam raacay oo rumeeyay waxa u horeeyay xaaskii nabiga hooyadii mu'miniinta Khadija bint Khuwaylid waxaa xigay Sayd bin Thabit ina adeerkii Ali bin Abi Talib oo isagu la noolaa nabiga tan iyo ilmanimadiisii dabadeed waxaa soo galay saaxiibkiisii xabiibka ahaa Abu Bakr as-Siddiq intaas waxay rumaysay maalintii u horeysay ee faafinta iyo ugu yeeridda dadka Abu Bakr wuxuu dhinaciisa ka xoojiyay faafinta diinta maxaa yeelay wuxuu ahaa nin lagu soo heento oo la jecel yahay oo dabeecad iyo waxtar leh ragga tolkiisuna waa u iman jireen oo ku soo heeman jireen sababtoo ah wuxuu ahaa nin cilmi leh oo sharaf iyo dhowrsanaan lagu yaqaan ganacsade maal lehna ah wuxuuna ahaa nin khiyaar ah oo gole iyo la fariisi wanaagsan leh sidaa daraadeed wuxuu diinta ugu yeeray raggii uu tolkii ugu kalsoonaa ee golihiisa imaan jiray waxaana yeeridiisa ku hanuunay oo ku soo islaamay rag ay ka mid yihiin Usmaan bin al-Affan oo reer binu Umayya ahaa As-Subayr bin al-Awwam oo Asadi ahaa Abdurrahman bin Auf oo Sahri ahaa Sa'ad bin Abi Waqqas oo Sahri ahaa Dalha bin Ubaydullah oo Atamimi ahaa sideeda qof baana u horeeyay dadkii ugu horeeyay ee soo gala diinta iyagaana ahaa raaci koowaad iyo caaradkii islaamka dadkii iyana horaanka ahaa waxa ka mid ahaa Bilal bin Rabaha oo Xabashi ahaa dabadeedna waxaa ku xigsaday aaminkii ummadda Abu Ubayda bin Jarrah oo Bani Harith bin Fihir ahaa Abu Salama bin Abdul Asad iyo Arqam bin al-Arqam oo labadooduba qabiilka reer Banu Makhsum ahaa Usmaan bin al-Mad'um iyo walaalihii Qudama iyo Abdullah iyo Ubayda bin al-Haris bin Abdul Muttalib bin Abd Manaf Sa'id bin Sayd al-Adawi iyo afadiisii Fatima bint al-Khattab iyo
Khabaab bin al-Arat, Cabdullaahi bin Mascuud iyo khalqi kale. Kuwaasi waxay ahaayeen horaankii caaradka ahaa, waxayna ka tirsanaayeen dhammaan jilibyada Quraysheed. Ibnu Hishaam taariikhyahanka caanka ah wuxuu taxay tiro 40 ka badan. Ibnu Isxaaq wuxuu yidhi, dabadeedna dadkii rag iyo dumarba raacraac bay diinta u soo galeen ilaa ay Maka diintu ku faaftay oo lagu sheekaystay iyadoo weli qarsoodi ah. dadkaasi diinta qarsoodi bay ku soo galeen. Rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam si qarsoodi ah buu ula kulmi jiray oo wax u bari jiray. Waxyiguna waa iska daba yimid oo soo kululaaday wixii al-Mudaththir bilowgeeda ka dambeeyay. Aayadaha markaa soo degayena waxay ahaayeen aayado gaagaaban iyo suurado yaryar oo kala googo'an oo si degan oo waafaqsan jawigii qarsoodiga ahaa ee aamusnaa. waxayna aayadahaasi sifaynayeen oo hagaajinayeen nafaha, waxayna u foolxumaynayeen dhaldhalaalka beenta ah ee adduunyada. waxay sidoo kale aayadahaasi si muuqata u sifaynayeen jannada iyo naarta. mu'miniinta u horseedayay jawi ka duwan kii bulshada aadanuhu markaas ku noolaayeen. wax la isfaro oo soo dega waxa u horeeyay salaada. Muqaatil bin Sulaymaan wuxuu yidhi markii u horeysay waxaa muslimiinta lagu farad yeelay 2 ragcadood oo subaxii ah iyo 2 ragcadood oo galabtii ah. Ibn al-Hajar wuxuu yidhi rasuulku wixii dhaalanka ka horeeyay salaadii uu iska tukan jiray, asxaabtiisuna sidoo kale, waxaana la isku khilaafay 5 salaadood marka lagu waajibiyay ka hor wax ma lagu waajibiyay mise maya. waxaana la yiri waxa faral ahaa in la tukado qoraxdu intaysan soo bixin iyo intaysan dhicin. Harith bin Usama wuxuu Ibn Lahiica ka wariyay oo isaguna Sayd bin al-Harith ka wariyay in markii u horeysay ee rasuulka loo waxyoodayba uu Jibriil u yimid oo baray sida loo weysaysto. markii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam weysada bogayna inta xoogaa biyo ah darsaday buu raaciyay farjigiis. Ibn Maajah xadiiska la mid ah buu wariyay. mid kale oo la mid ahna waxa laga wariyay al-Bara bin Aasib iyo Ibn al-Abbas. xadiiska Ibn Abbas waxa ku jira taasina waxay ahayd faralkii u horeeyay. Ibn Hishaam wuxuu wariyay in nabiga iyo asxaabtiisu markii waqtiga salaada la gaaro aadi jireen lugaha buuraha oo ay salaadooda uga qarsan jireen tolkood. Abu Talib wuxuu mar arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo iyo Ali oo tukanaya, markaasuu weydiiyay waxa ay u taageerayeen. markii uu ogaadayna inay ahayd salaad faral ah, wuxuu amray inay ku sugnaadaan dhaqankoodaas. walaalayaal, darsigeeni maanta halkaas ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.